ururka suxufiyiinta qurba joogta dalka Kenya marka la soo gaabiyo loo yaqaan SAGAS ayaa waxa ay doorteen musharax cusub oo noqon doona gudoomiyaha suxufiyiinta qurba joogta ee dalka Kenya. Suxufiyiinta Soomaaliyeed ayaa ku soo badanaya magaalada Nairobi kadib markii ay la kulmeen khatar weyn ay kaga timid ammaanka wadanka Soomaaliya. suxufiyiinta ayaa dhibaatooyin kala duwan kala kulma wadanka Kenya markay yimaadaan dhibaatooyinkaas oo baahiyo caafimaad shaqo la'aan iyo waliba ammaankooda oo aan ahayn mid si saa'ida u sugan. waxaa kulamo badan kadib ay suxufiyiinta Soomaaliyeed ay door bideen inay sameystaan gudoomiye u matala qurba joogta si xiriir loola sameeyo hay'adaha u dooda xuquuqda wariyaasha si loo daboolo baahida wariyaasha qurba joogta ah. doorashadan ayaa waxaa ka warbixiyay gudoomiyaha doorashada loo egmaday Fuad Deqsi. ورياش قربجوج أهان قدومي دورشة كان بدأ ورياش سومالي دكتور شقي مقالة بردشو أنا أقول ما هي بل غير نوما مالين حانو من دان سوماليات أنا كل شقينا يعني بقول بلنا وفنا نمرتوق نقوم من أيام مد سوماليات وأنا كل شقينا وحنا مشرحين هالجا كه وهو مشرحين أو ريال عنا أو كم يدي عبد الغفار أحمد شلة آدم محمد صلاح كسمايو كان قوليستوى وأنا كوفان عن نتيجة قابة الدراسة وأنا ما نلقينا سنة سنة بدل المشرحين سوسو تاجين. waxaa doorashadan ku guuleystay Cabdi Ghafaar oo si weyn uga hadlay waxqabadka looga baahan yahay inuu u qabto suxufiyiinta iyagu qurba joogta ah ee ku sugan wadanka Kenya. أنا شرف وين إيه أهيد حقيقة مركي اللي آدم كسمايو كلها ترتمي وانا because we got popular thing we got عن سنة. لكن waxaan u maleynayaa Soomaalidu waxay tiraahdaa gari laba nin kama wada qoslisay doorashada aan aniga asaga ku wada tartanay labadeennaba inay sharaf noo wada ahayd si aan maaragtay u wada shaqeyn karnana mustaqbalka ay wadada waxaarto waxaan ka balan qaadayaa wariyaasha intii oo codeysay oo konton iyo dhowr lagu sheegay intii saaxiibkii oo codeysay inaan isku si siman ula shaqeyn doono kii sheegay inuu igu codeeyay kii aan ii sheeginba oo aan ula jeedo haddii aan hada guuleystaysan isdhihin 20kii maadaama ninka Cabdi Ghafaar ka soo jeeday oo codeysay bari ka maanday fursad haday soo baxaan xabadka ama gacanta la gashaa waa iisantihiin taa waxaan u leeyahay xogaa wax walba iska soo bixi kara anyway horta xilku wax fudud maahan maantana dawlad qaran ah marihin saad ogtihiin 20 sano aan burbur ku jirnay waxyaabaha aan aadka ugu dadaali doono waxaa kamid ah xuquuqda saxafiyiinta inaan si midaysan oo Soomaalinimo ku jirto oo raadsho ma aha muhiimadu inuu qof laba qofda guuleysto ma aha in laga guuleysto inaad guuleysato guushana laba qof kama wada quslisiiso libintu mid un bay raacdaa mana ahan in aan dhahayo waa laga guuleystay wax doorasho oo dhacday ma jirto ma dhahayo laakiin saaxiibkay waan ugu mahadcelinayaa sida wanaagsan uu dhinacayga u soo istaagay uu loolanka u wada galnay sidoo kale waxaan idin caddeeyaa inaan diyaar u ahay inaan Cabdi Ghafaar la shaqeeyo oo aan markasta dhinaciisa taagnaado. waxaa iyaguna dareenkooda madashan ka cabiray wariyaal aqoon-yahano culumaadiin oo dhammaan qiyaasay baahida loo qabo in la helo gudoomiye ay yeeshaan ama ay sameystaan qurba joogta wariyaasha Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Kenya. doorashadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo ay dhawaan jireen dilal iyo dhaawacyo loo goystay wariyaasha ka howlgali jiray gudaha Soomaaliya. waxaa hadalla qiiro leh madashaasi doorashada ka soo jeedisay xorriye oo ah wariye ay dablay ay hubaysanay ay 5 xabbo ku dhufteen iyadoo wadata shaqadeedii idaacadda Gaalkacyo ee gobolkaasi Mudug. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee wiilasha gabdhaha isku jira oo halkaan ku sugan runtii waxaa marna farxadii ah marna murugii ah annagoo dalkeena Soomaaliya oo burbur ka soo tagnay kana soo cararnay dhibaatada iyo dilalka loo geysanayo isbitaallo fara badan iyo qalliin aan soo maray maanta waxaan ku suganaa magaalada Nairobi waxa ay keenay ma ahan dalxiis ma ahan Nairobi jeclaanteeda laakiin danta ay baday wana amaandirida inaan isku dayno inaan ka baxno dhibaatada nagu haysata qurbaha inaan doorano qofna hogaamiyo inaan doorano qof noo matala baahida iyo dhibaatada na haysata mid waa ta ku dhacday walaalkeen Cabdisalaam Sheekh Xasan Xiis oo shaqeynayay telefishinka Home Cable magaalada Muqdisho waxaa dilay askari ku labisan ciidamada dharkooda waan wata casiyeenayna dhamaanaha waxa la yiraahdo Soomaalida markay musharax tahay
labada qof haddii waxqabadkooda la weydiiyo mid walba wuxuu leeyahay tubooyinka biyaha ee ka socdaan caanaan ka dhigaya inay ka socdaan oo marka waxay muujinayaan markaas dareenkooda iyo waxay qabanayaan laakiin inta badan Soomaali hadday tahay afay naga tahay waxaan kula dardaarmayaa guddoomiyaheena in wadada Soomaaliya inta badan mas'uuliyiinteeda haddaan fiirino wadada ay mareen inta badan inaadan marin aan taas kugula dardaarmayaa hore waxaan kulamo ula soo qaadan jiray Kenya journalists waana waxaan isleeyahay aad baa loogu dhiiraday xubnihii isu soo abaabulay inay sameeyaan ayagoo waddan qurba jooga doorasho ay sameeyaan hoggaan ay ku midaysan yihiin ay u codeeyaan kusii dheeraan maayo guddoomiyaha xilka loo magacaabay ama loo doortay mid ayaan ugu baaqayaa hadduu nala joogo cabdiqafaar xilka lagu dhibay iyaanu noqon mid kuu keli noqonaya ha kala reebin islaamnimadaada iyo professionkaagu ma kala hadhaan anuu hadda businessman baan ahay haddaan businesskayga ku ekaysto oon islaamnimadii ka saaro businesska waxa weeye waan khasaaraya ma kala hadhaan marka qofka professionkiisa iyo islaamnimadiisu ma kala hadhi karaan taasi waxay keenaysaa kow waxa uu soo sheegaya inay tahay wax run ah marka ugu horeysa yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqu llaha wa kunuu maca asaadiqiin run inaad sheegtaa la rabaa oodan been sheegin adoo cid ugu danaynaya labo waxaa la doonayaa wax walba ood maqasho inaadan sheegin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinkaga mahad celinayaa sida wanaagsan ee aad ii dhegaysateen oo qaarkiin gaar ahaan dadka madaxda ah ay u maqleen hadalkayga ku saabsanaa inaan joojino khilaafka oo Soomaalinimo iyo wanaag la wada helo aad baan idinkaga mahad celinayaa tan labaad waxaan mar walba idin sheegayaa waa rabaa inaan kula dardaarmo arrintan nuxnuxdan iyo qabyaaladda oo dadka qaar leeyahay qabiil baa jira waxaan rabaa inaan idin sheego qabiil hadduu wax tarayo xamaraan joogi lahayn Soomaaliyay wanaag waxaad ku weydaan waa lug meelaysaan midda kale mihnidan saxaafadda waxaan idinka codsanayaa qabyaaladda ka dheer inta aad ka dheerayn kartaan qabyaaladda ka dheereeya waana mahadsantihiin sida aad idinka maqlayn ujeedada iyadu waxay ahayd in la helo midnimada saxafiyiinta midnimada saxafiyiintuna waa mid muqadas ah waxaanan ka codsanaynaa insha Allah musharaxii halkan ku soo baxa inuu sameeyo in uu qolada kaleeto raadiyo dhalinyarada kaleeto iyaguna wax wadwada oo la mideeyo oo wariyaal midaysan ay soo baxaan oo ururka Nairobi ka dhisan uu noqdo urur ay ku daydaan saxafiyiinta Soomaaliyeed guddoomiyaha waxaan jeclahay inaan marka hore u hambaliyeeyo sidoo kalena aadan Kismaayo ayaan asagan u hambaliyeynayaa labada nin runtii anaa ag fadhiyay kolle mid baa walwal badnaa laakiin ma sheegay marka waxaan leeyahay labadiina waa guuleysatay maxaa yeelay saxafiyiin ayaa idin codeeyay qaar midkiin habato laakiin mas'uuliyadda dambe sheegi doonta waxaa laga rabaa cabdiqafaar in uu noqdo saan u jeedo gabdhaha wax badan ay tabanayaan gabdhaha Zahra UK aniga haddii wax la sharaxanayo Zahra idaacadda danan ayadan soo sharaxan lahayn marka waana laga hormaro laakiin marka Zahra iyo gabadhii kale hadasho waxbay tabanayaan in uu cabdiqafaar xaliyaan rajaynaya 1996kii waa la yaabay yani waxa incredible ah waddankayga wax dhib uu kama jirin cabdifataaxna waxaan leeyahay Kismaayana niyo hambalyo wanaagsan waxaan anigu aaminsanahay inaad Broadway basida adoo 86 dhashay hadaad doorasho ninkii labaad noqotay guul weyn baad gaartay labadii musharax ee sida cad ee muuqata ee xalaasha ah ee aad ugu codeyseen ee runtiina hadda kaalintaas uu ku soo baxay mid ka mid ah saxafiyiinta Soomaaliyeed Cabdiqafaar Shire waan ugu hambalyeynaya laakiin waxaan xasuusinayaa saaxiibkay in inta dooratay inta aan dooran iyo in kale imaan doonto halkan kana imaan doonto qayb ka mid ah Soomaaliya oo dhibaatooyin wali ay ka sii socdaan in isaga ay soo u imaan doonaan isla markaana uu wakiil ka yahay inta halkan joogtana uu wakiil ka yahay si cadaalad oo muuqata oo walaalnimo iyo islaamnimo ku dheehan una u maareen doono khibradii uu markii hore isugu soo taagay jagadan banaan ee aan shaacinana inuu kaalinteedii iyo aqoonteeda uu leeyahay waa ugu hambalyeynaya doorashadan ayaa ahayd mid si weyn ay wariyaasha qurbo joogta ee Nairobi ay uga qayb qaateen
isla markaana ay ka soo baxday natiijadii ay wax badan sugayeen si loo helo hogaamiye u daacad ah waxqabadka wariyaasha qurba joogta ee ku dhaqan magaalada Nairobi. Ibrahim Mahmoud Jamac, Somali Channel, Nairobi.